madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmoon ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho ya Hotel Airport ma isu kulan kala weelday wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay in qaabilsan arrimo Soomaaliya Ambassador James Iswan kulanka madaxweyne Laftagareen iyo Ambassador James Iswan may qayb ku hayay diblomaasiyiin iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin kulanka oo hay dhowr saacadood socday madaxda iyo isla falaqeeyna dardargeliyo ka geedi socodka doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba sidii lan xaqiijin lahay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawo la qorsheyntii ku qabsoonto doorashada xubno aqalka hoose James Iswan wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimo Soomaaliya iyo madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ka amaanisada uu dadaal badan ka biisidii uu dhaxdhaxaadii lahay wana uu helisiyon ku deeran lahayn khilaafkii muddada ku dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iyo khilaafkii iyo helis iyo ku deeran James Iswan wakiilka qaramada midoobay ee dhinaca kala madaxweynaha ka amaanay suunku goonta sidii uu dardar gelin lahay doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la kuwada dhawaan intii ku bilaabata guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ambassador James Iswan oo ku mahadnaqay dadaalada UN iyo ka biyahayaan sidii dalkayaan ku qabsoomo lahayd doorasho wada ogol ee maynu soo xusay kan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan antiyo dardar geliyo doonaan doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka madaxweyne Abdicasiis Laftagareen iyo Ambassador James Iswan oo ku qabsoomay hotelka oo dambeeyay ee Airport saacado soo socday mayon ku aransadayna xaaladda guud ee dalka iyadoo mahadnaq iyo amaan Iswan uu sanjeedi madaxweyne Laftagareen dhexdhexaadintii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Faisal Maxamed Isa TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho